السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين صاحبي دمانتين ميل كستو جوجتان مقعي ونور إبراهيم علي وحاربا إنان سو قدبيو امتحانكي سنتكي لبادو كونيو لباتن أردادا فصلka siddeedaad laga qaaday imtixaankii dowladda Soomaaliya ay ka qaaday ardada fasalka siddeedaad ayaan baranayna qaabku ahaa iyo waxyaabaha isaga u gaarka ahaa qaabkiisa wajahada kore dabcan way iska leeyihiin subject English fasalku ama grade 8 academic year sanad dugsiyeedka 2019 ilaa 20 total marks waa 100 saacad uu soconay imtixaankan waa 2 saacadood waay waxa lagu leeyahay oo aqriyay qaab dhismeedyadani ama qaabkani si oo taxadir leh ka hor intaadan isku dayin su'aalaha marka waan soo koobayaa time-ka aan rabo inaan soo koobo koob magacaaga qoraysa and write your full name roll number-kaaga ama waxa qoraysa numberka ku yaalo ID-ga ama kaarka lagu siiyay in English ahaan oo qoraysa schoolka magaciisa and on the space provided you answer booklet ko meesha lagu baneeyo waa halkaas ku qoraysa write all your answers on the answer booklet ku qor saas ku leeyahay si oo maangal ah ama la fahmi karo qor fartaada adoo isticmaalay qalin oo blue oo dark ah oo thick yani ka jawaab dhammaan su'aalaha qaabka lagu sheegay ama qaabka lagu tilmaamay lagu siiyay su'aalaha ugu jawaab shaqada rafweega la yiraahdo ama waxa aad qorqorto waa inay ku yaalaan bookletka marka kaas wuxuu leeyahay qaabkaas ayaa loo rabaa hadalkan oo muhiimka wuxuu yahay adhere to examination regulations and allow the time oo hoggaansan imtixaanka sharciyadiisa iyo waliba saacada lagu siiyay oo 2 saacadood check that your examination in question paper has 5 printed pages iska fiir warqadaada in 5 page tahay excluding the cover page oo aan ku jirin cover page-ka absolutely qaybta ugu horeyso waa tana waa qayb grammar ah waana doorasho ama waa circle and use by circling the correct answer from the choices given below jawaab saxda ka dooro adoo goobo gelinayo midda saxda ah waana 40 marks lagu saxeeyaa I'm trusted one xiisaya blank tense inaan ciyaaro marka in miya on miya add miya off miya yani waxa la doonayaa tan I'm interested in playing tennis okay we have not and for a very long time muddo dheer ka hor maanan kulmin ka wada meeting met waxaan qaadanaynaa med ayaan qaadanaynaa number 3 wuxuu leeyahay did you see this message friend was sent to your email last week oo emailka lagu soo diray marka tan waxaan u qaadanaynaa which was sent taasoo lagu soo diray aan leenahay number 4 wuxuu leeyahay xalini kale received wuxuu helay a letter warqad ayuu ka helay from his daughter gabadhiisa marka has received ayaan siinayna has received oo has ayaan qaadanaynaa number 5 waxaan leenahay who the letter and to whom was it addressed to warqad micnaha yaa qoray yaan micnaha warqadaasi loo diraayay ama lagu hadlaayay marka who wrote ayaan leenahay yaa qoray who wrote oo saas u qoran qaadanaynaa she listening to teacher macalinka dhageysanaysa absolutely tan waxaan qaadanaynaa she is listening ayaan leenahay and the visitors have not arrived yet wali dadka martida ama booqadayaasha maysan imaanin kan marka waxa waa isaga question tag ayaa loo sameynayaa ama su'aasha hubsimada ayaa loo sameynayaa marka the visitors have not yet arrived wali maysan imaan diidma ku jirto half they ayaad qaadanaysaa you will not repeat that mistake qaladkaasi ma ku soo celin doonto maadaama not intay taalo inta question tag mu isticmaalaysid will you ayaad isticmaalaysaa will you
and number 9 waxaa leeyahay when writing a direct statement into an indirect statement hadal oo direct marka indirect laga dhigayo the verb becomes the verb is laga rabaa the verb is verbko is becomes wuxuu noqdaa wuu soo socdaa was ayuu noqdaa is meesha way ka maqantahay laakiin warqadaada way ku taala was ay noqonaysaa how students came to school last week meeqa ardaya timid iskuulka many ayaan qaadanaynaa inta kale uma qaadan karno how many students came to school last week okay whom are you waiting for aan qaadanaynaa whom are you waiting for yaad sugaysaa inta kale haddaan hal u sheego waan ku daahayaa mid la qaadanaya bis ayaan kuu sheegayaa okay and all proper nouns begin with and dhammaan magacyada khaaska waxay ka bilowdaan capital letter xaraf weyn ay ka bilowdaan capital letter xaraf weyn ay ka bilowdaan she sayada with window daaqada to get some fresh air hawo nadiif ah soo hesho opening ayaan qaadanaynaa she's opening the window wayahay and 14 wuxuu leeyahay would you like mjeclaan lahayd to have ina qaato apple tufax an apple an ayaan u qaadanaynaa the suffix and gadaalgalaha oo ish la dhahayo added to waxaa lagu dara some nouns magacyada qaarkood in order to form si uu sameeyo an adjective sifa si uu sameeyo adjective ayaan u qaadanayna kan adjective ayaan u qaadanayna the plural form of the word baby erga baby jamciisa is waxaa waaye babies tan waaye waayahay the past form of the verb take ergan take a pastigiisa is waxaa waaye absolutely took waaye intaas kale ma noqon karo past formka took waaye okay we have been married 25 years and waxaan isqabnay since 25 years ilaa 25 sano muddo laga joogo since ayaan micnaha aan u qaadanaynaa okay I walk when I was 2 waan socon karay markaan yaraa could ayaan u qaadanayna because could waa kan pastigeed waxaana loo isticmaalayaa wixii lasoo dhaafay oo la karay I promise waxaan ballan qaaday that this will never happen inaysan dhici doonin again mar labaad again mar kale inaysan dhici doonin ayaan ballan qaadaya and section 2 wuxuu ku leeyahay waa vocabulary waa 30 marks waaye question 21 to 23 use the correct word that completes the similes below similes isbarbardhig waaye marka waxaa la isbarbardhigay kan ku haboon booska ayaan circle gelinayna ama isticmaalayna the area meesha areada laha ama meeshaasi was as green as waxay u cagaarnayd as sida grass cooska grass cooska he appears wuxuu u muuqdaa as brave mid u geesi ah as sida a lion libaaxa and 23 wuxuu leeyahay the classka fasalka is as quiet wuxuu u degan yahay as sida a grave qabriga oo kale ayuu aamusan yahay ama u degan yahay question 24 to 35 su-aasha 35 ilaa 35 choose dooro the best alternative and doorashada saxda qaado from the choice given doorashooyinka lagu siiyay midka saxda ka qaado and waxaa way someone waa qof who is legally and responsible kaasoo sharciyan mas-uulka for his or her actions wixii uu sameeyo an adult way qof weyn waaye awtija macalinka didn't have muusan haysan enough to drive iska oo gaarigiis kaxeeyo wax gaari lagu kaxeeyo maysan ku jirin waa fuel shadaal waa a school period and xiisada schoolka is a part of time planned for waa qayb kamid ah waqtiga loo qorsheeyay for timetable and scene animation time hoose jirta timetable ayaan siinayna the synonym and ereyga isku midka ay yihiin for the word respond ereyga respond oo jawaab ah is waxaa waaye reply synonymkeeda waxaa waaye respond waa isku jawaab waa okay 28 waxaan leenahay the opposite of the word husband ereyga husband oo ninka islaanta qaba ah waxaa lid ku ah wife xaaska la qabto mid la qabo ayaa lid ku ah can a child to become smart can a child help laga rabo meeshan haddaan ka tagay dhib ma laha and to become smart and a president of a nation wax oo ka caawin kara ama educationka ayaan u isticmaalaynaa and educationka ka caawin kara wiilka ama arday qofka inuu noqdo mid aad u wanaagsan wadan madaxweyne ka noqon karo okay and the parents waalidiinta tried waxay isku dayeen to their child about the dangers of the internet use in ay macnaha ka waaniyaan cunugooda khataraha internetka advice way
advice oo waanin ah. 31 is the act of making up your mind about something. waa falka maskaxdaada wax ka samaysanayso. decision waa go-aan waa. Okay, 32 and which one is not related to sporting activities? mid aan sports ka xiriir la lahayn. absolutely sleeping way. sleeping tan waxaan ku leeyahay 33 the mother of your father is your and aba hooyadiis waxa waa grandmother waa ayeeydaada. grandmother waa ayeeydaada. government officers saraakiisha dowladda who are not elected come through kuwaas oo aan la dooran come through waxay ku imaadaan appointment magacaabis. appointment marna waa ballan marna waa magacaabis. appointment maxaa waaye magacaabis ay ku imaanayaan. 100 years make up one 100 sano waxaa ka samaysmaya 1 century hal qarni. 1 century hal qarni ayaa ka samaysmaya. Part 3 waa comprehension waaye waa sheeko dheer oo cajiib ah. communication isgaarsiinta ama communicationka is very important. waa qayb maxaan ku raahdaa muhiim ah. waayahay is very important activity waa howl aad iyo aad muhiim u ah. and that all people undertake on daily basis. dadka dhan maalintii si yani aasay u qaataan. the purpose of communication differs from ujeedada isgaarsiintu way ka duwan tahay one person to another. hal qof iyo qof kale arrintu way ka weyn tahay. the means of communication macnaha isgaarsiinta maybe wuxuu noqon karaa verbal mid afka laga sheego non verbal mid afka laga sheegin. in some cases qaarkood it may be in written qoraal uu noqon karaa qaababka qaar qoraal uu noqon karaa. in the communication process hanaanka isgaarsiinta there waxaa jira certain elements waxyaabo gaar ah that make the communication process effective oo ka dhigayo hanaanka waxbarasho hanaanka isgaarsiinta mid dhaxalgala oo waxtar leh. the two people involved in the communication dadka labada qof oo wada xiriirayso oo xiriirka lugta ku wada leh called waxaa lagu magacaabaa speaker ayaa lahaa oo writer waa hadle ama qore. sender waaye and the audience or receiver qofka daawanaya dhageysanaya ama qofka loo dirayo ama helaha. the channel through which they communicate channelka ama qaabka meesha ay ka wada xiriirayaan is known as waxa loo yaqaan medium warbaahinaya loo yaqaan. the sender conveys and diraha wuxuu qaadaa his message fariintiisa to the receiver qofka loo dirayo by some medium warbaahin or channel isticmaalaya. the word media erga media wuxuu ku leeyahay derived from waxa laga keenay the place name the media male media lagu magacaabo in Persia ku taala Persia ama dhulka Persia la yiraahdo ee Iraq which was ruled by oo uu xukumi jiray Emperor and Cyrus and boqorkii Cyrus dhihi jiray. the media that people use to communicate work with electronic journalists and warbaahinta dadku ay ku wada xiriiraan waxay ku shaqeysaa nidaamkan electroniga radio broadcasting. absolutely aad iyo aad ay u dheer tahay Facebook iyo waxaasay ka hadlaysa markaan kaaga jawaabo waad fahmi doontaa hadduu aad leedmo sheekadani wayna fududahay. marka waxaan imaanaya dulucda iyo halka sheekada jawaabaheedu ay yaalaan. choose the correct one midda saxda ah goobo geli oo circle galay. we do communicate anagu waxaan xiriirnaa dadka la xiriirnaa every day watan aan u qaadanaynaa every day. okay, the person that receives the message is called qofka warbixinta helayo waxaa lahaa audience ayaa lahaa ama base waxaa waaye receiver oo kala dhigan tahay waana B. the main purpose of present day media is to ujeedada laga leeyahay warbaahinta maanta jirta is waxaa waaye to information warbixin in ay sidaas ku sameyso. waxaan leenahay markaasi halkan is store and process, store and send, store and write, give and inta waxyar ka qaldan sorry meeshan oo ah store and give information laga rabaa. store and give information warqadaada inay ku qoran tahay ayaan rajeynayaa. store and give information ayaa laga rabaa. okay, and telecommunication isgaarsiinta enables us waxay awood noo siinaysaa to communicate inaan la xiriirno with people that at oo joogo meel la yiraahdo far place meelo kala fog inaan la xiriirno waana far off places by. okay, has a key role in the publication of different materials. door fiican ka ciyaaraya markaasi waxa la yiraahdo yani daawacada ama base habka daawacadan qaabab kala duwan. radioga, televisionka, print media warbaahinta wax daawacada ama habkan waxa la daawacay la isku la xiriirayo waana C. print media. Facebook waa print media oo C ah.
The broadcast media is widely used and warbaahinta aad ba loo isticmaala because of its ability way awoodeed darteed awoodda ay leedahay darteed. Okay, ama its need baahida loo qabo aan dhahay its need baahida loo qabo ama inta laga rabo in qof kasta uu ka helo. And telecommunication as time and service as time ay leenahay yani waqtigan ay noo kobcisa ama ay noo yani noo badbaadisa. And afar iyo aan 43 waxaan leenahay the message fariinta is usually badanaa conveyed through waxaa lagu gudbiyaa hab mediator medium waa median iyo medium way waxaan ku kala gudbinaa uu leeyahay c oo medium iyo medium waxay kala duwan yihiin. Media waa jamac way medium waa singular. The place name the media halkan media la yiraahdo isin waxay ku taalaa Persia ay ku taalaa Iraq bay ku taalaa waayahay. Advertisement and xayeysiiska is mainly used waxa badan loo isticmaalaa to and in kor loo qaado promote kor loo qaado marketing suuq geynta promote and qaadanayna. A verbal communication and isgaarsiinta afka means waxa laga wadaa word of mouth erey afka laga dhahay waay. C word of mouth and is a form of electronic media waa hab electronic media that kaasoo is stores datada oo keeda in a digital form qaab digital ama qaabka casriga digitalka loo yaqaan hadda shaqeeyo waana digital media waana D. Okay, telecommunication media include waxa kamid markaasi the following except marka laga reebo radio, television, telegraph, magazine-ka except isaga ayaanan ku jirin. Okay, the word convey erga convey as used in the passage means sida loo soo isticmaalo sheekada dhexdeeda means waxa loola jeedaa get maaha inta kale maaha waa take qaadid way be take. Okay, and aad ay umahadsantihiin and waxa ii soo haray dabcan composition writing-ka ciwaankaas haddaad taqaano composition writing-ka waxaad ka qori doonta inta aad ka taqaano waa in ku xiran maskaxdaada sida markaas ay u fikirayso laakiin qaabka loo qoro paragraphyada iyo waxaan jeclahay inaan soo gudbiyo duu alle idmo intaan kulmi doono casharka kan xiga waxaan idinkaga tegay siyaasiyo nabad geliyo.